Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabada iyo daawadayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii duurjoogta. Barnaamijkeennani waa qaybtii labaad ee dalka Zambia, gaar ahaan webiga loo yaqaano Luangwa. Sayn hore u soo sheegnay, webigan Luangwa waxa uu xuduud u yahay laba raxanood. Raxani waa raxanta la yidhaahdo Meiti, kuwa kalena waa Wamba. Waxaynu ku jirnaa xuduuddii Wamba, waxaana u dhexeeya isla webigan oo qolona qolo uma tallaabayso. Waa kale ayaa u bariyey raxantii libaaxyada ahayd ee Wamba. Loogisidii ayaa iyana biyihii harsanaa soo raadsatay. Raxanta qaar ka mid ah ayaa iyaguna dhaawac qaba. Aadna weliba raxantu way u gaajaysan yihiin, balse ugaarsigu aad buu ugu adag yahay. Waxa ku jira lo'dani ama loogisidani 300 oo xoog ah. Kuwaasi oo isku xeeraya dhallaankooda hareeraha, xagga hore iyo weliba xagga dambaba waa ay ka socdaan. Kuwani waa ilaaliyaasha loogisida, waana kuwa ugu xoogga waaweyn leh. Dhulkani duurjoogtu ay ku nooshahay waxaa lagu qiyaasaa ilaa 400 oo mayl oo isku weer ah. Loogisida markasta waxaa hogaaminaya kuwa ugu xoogga waaweyn. Kuwa yaryar iyaga hareeraha ayay ka socdaan, dhexda ayaanay gashadaan mar walba si aan loo ugaarsan. Loogisida laftigeega waxa haya raad aad u weyn. Kooxda Wamba iyo weliba Arki waxay bilaabeen dhaqaaq. Kooxdu aad iyo aad bay u gaajaysan yihiin, waxaanay bilaabayaan cunto raadin.
Lo-ogisidu iyagu fursad kale ma haystaan ama doorasho ma leh inay iska caabiyaan raxanta libaaxyada mooye, waanay hujuumayaan, waana iska celinayaan. Maxaa ku dhacay raxantii? Raxantii waxaa ku dhacay kala carar. Lo-ogisidu waxay joogaan waxa weeyaan xuduuddii Wamba. Cawska laftigiisu waa qallalan yahay. Balse way ku qasban yihiin oo doorasho kale ma jirto. Raxanta iyo lo-ogisidu midba midka kale ayuu eegayaa oo u daymoonaya. Raxantu jaanis ayay u daydayaysaa ay ku ugaarsato lo-ogisida. Waxaanay weliba raxantu ku nasanaysaa geedka oo way hargashay. Muddo 3 cisho ah ayay lo-ogisida iyo weliba raxantan Wamba ay is eegayaan iyagoo midba midka kale oo fiirinayo. Lo'du way daaqaysaa, iyaguna way jeedaalinayaan oo waxay eegayaan in ay fursad helaan. Maanta lo-ogisidu waxay sameeyeen dhaqaaq. Raxantii libaaxyada ahaydna way ka daba dhaqaaqday oo iyaguna halka ay u dhaqaaqdo lo-ogisidu ayay iyaguna ka daba guurayaan oo u dhaqaaqayaan. Balse weli waxay ku jiraan xuduuddii Wamba. Lo-dibadeedka kale iyo dameer farowga ayaa iyaguna dhankooga kala jooga oo la daaqaya. Inta badan way isku lamaan yihiin lo-ogisida, lo-dibadeedka iyo weliba dameer farowgu. Lo-ogisidanu markay dhulka cawska ka dhameeyaan waa ka sii dhaqaaqayaan oo xagga cawsku ka xigo ayay kolba u sii durkayaan. Goobta waxaa jooga deerooyinka iyo weliba ugaadhii kale, iyaguna halkaas ayay daaqayaan
oo cawskaa yar ee meesha ku sii harsan ayuu mid waliba calaf ka raadinayaa. Waa maalintii afraad, weli lo-ogeysidu waxay ku sugan yihiin xuduudda Wamba. Raxantanna aad ayay u gaajaysan tahay, welina waxba may helin. Goobtan cawsku ka sii qalalayo laftigeega waxa ku nool harimacad. Isaga laftigiisu inuu jaanis helo oo uu wax ugaarsado ayuu ku qasban yahay. Waxaanu lo-ogisida ka raadsanayaa fursaddii uu bal wax ku heli lahaa, balse lo-ogisida kama helayo jaanis, waayo raxanta oo isku duuban ayaa jaanis ka waayay. Isagoo keligiiya inuu wax ka helo lagama yaabo. Inay eryadaan mooyaane. Lo-ogisidan xoogga ah mid kasta wuxuu maalintii cunaa caws gaadhaya 30 ilaa 40 kiilo. Waxay daaqaan ugu yaraan 9 saacadood oo isku xiga. Noolaha Ilaahay xayawaan buu ku dul nool yahay. Lo-ogisidan waxa ku dul nool shimbiro, kuwaasi oo maalintiina la socda habeenkiina la hoyda. Shimbiruhu mid kasta maalintii waxay ka cuntaa lo-ogisida dusheeda ilaa 100 cayayaan ah. Lo-ogisidu markay mar walba ay dhammayso cawska goobtaasi, haddana aag kale ayay u baydhaa oo caws leh. Welise waxay ku guda jiraan xuduuddii Wamba. Waa tahay daawadayaal, waa qaybteennii labaad ayaynu intaasi kaga gudbaynaa. Intaynu qaybaha dambe ku kulmi doonno waxaanu leenahay dhammaantayo nabadgelyo.